السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي سوماليا ميل كستودا دونك كجوكتين وولاشين uga horsame oo idin soo marinaysa hawada salaan aad u qiimo badan waxaanu ku jirnaa maalinka u dambeysay ee 31 December sanadkan 2020 maxaan ka baranay sanadkan 2020 maxaan rajaynaynaa 2021 in ilaahay nagu soo kordhiyo su'aalo bal u baahan in qof walba isweydiiyo markaan isweydiiyay baan idin sheegayaa waxa aan ka bartay iyo waxaan rajaynayo sanadka soo socda insha Allah anoo idinkoo dhan idin rajaynaya sanad caaqiba fiican cibaado aad kala maaragtay kulantaan oo cibaadeysataan caafimaad ilaahay naga siiyo iyo cimri suuban iyo barwaaqo maxaan ka bartay oona rajaynaya dad badan inay ka barteen sanadkii 2020 horta sanad wuxuu ahaa aad annagoo dhan aan maaragtay waxyaabo badan uga baranay anigu waxaan ogaaday in faa'iidada ay leedahay isku imaanshaha bulshada faa'iidada ay leedahay masaajidka inaan taraawiixda kusoo tukano faa'iidada ay leedahay markuu qof ka dhinto inaan u tacsiyeyno faa'iidada ay leedahay qof markuu naga xanuunsado inaan isbitaalka ku booqano nimcooyinkaasoo dhan oon haysanay ma aanan fahansanayn nimcadaas inta ay la eg tahay sanadkan 2020 ayaanu waxaan fahanay privilege waxa la yiraahdaa ama nimcooyinka aan haysano oonan marar badan dareensanayn isu imaantanka dadka la kulmo salaanta la soo salaamo booqashada qofka xanuunsan qofka geeriyooda oon u soo tacsiyeyno jamaacadan ku soo tukano faa'iidada ay leedahay iyo nimcadaas iyo sidaanan u ogeyn marka intaasoo dhan oo aan haysanay oonan dareensanayn waxaa kaloo weheliya iskuullada ilmaha markii loo diro hooyooyin badan baan la sheekaystay ilmaha markay waliba yaryar yihiin hooyada ilmaha badan haysata iskuulka markay u dirto marar badan hooyooyinku waxay oran jireen ilmahan waxba ma soo baraan macallimiinta iskuulkan ay ku maqan yihiin waxba kalama yimaadaan waxba laguma baro laakiin ma aysan ogeyn mana ay dareemin intaasoo saacadood qofka ilmahaaga wax kuu barayo kuu haya inta hawl oo uu hayo lama dareensaneen hadda ayay hooyooyinku waxay dareemeen nimcada iyo wanaaga iyo fiicnaanta ku jirta oo ilmahaaga qof aanan dhalin oo macallin u ah oo intaasoo saac intuu ka hayo wax kuu barayo hawshoodii dhibkooda u hayo hooyooyinka hadday ogaadeen hadday waxay dareemeen macallimiinta iskuullada hawshay ka hayaan marka sanadkan wuxuuna dareensiiyey nimcooyinka aanan markii hore dareensanayn een haysanay oon hadda baranay oo ay ka mid tahay waxyaaba badan oo midda kale waxaa la ogaaday oo 2020 ayna bartay in dadkeena waliba Soomaalidu waxaan nahay dad aad isugu yimaada oo family oriented ah inta badan isu imaanshihiiba xakamoobay nimcooyinka isku imaanshaha aanu haysanay way xakamoobeen inkastoo dad badan oo aanan wax farqi ay u sameyn ay jiraan laakiin inta badan way xakamoobeen hadda aniga isbitaal baan ka shaqeeyaa waxaan arkay qof xanuunsan isbitaalka ku jira oo dadkiisi loo ogoleen hadda kama hadlayo dadka covid ka qaba ama xanuunkan caabuqa coronavirus kama hadlayo dadka caadiga u xanuunsan xataa way badashay qofkaaga isbitaalka ku jira oodan booqan karin si loo xakameeyaa la yiri cudurkan inuu isbitaalka xataa yimaado dad yoogi imanay soo booqanay waa la xakameeyay marka waxayna bartay faa'iidada qofka isbitaalka aan ku soo booqanayno sidan horeba haday uu soo sheegay clipka intiisa hore wax weyn marka ilaahay idankiis inta hadda soo tiriyay iyo in ka badan oonan soo koobi karin ayaanu baranay 2020 nimcooyin aan haysanay oonan ogeyn diyaaradoo kale haddana waan safray 2020 sanadkan waan baxay waxaan tagay Afrika Soomaaliya iyo Kenya tagay diyaarad xilligan doonaan goosan jirnay awal hadda waxay noqotay diyaaradda iskama goosan kartid haddaad diyaaradda goosanaysid waa in laga qaado test baad maraysaa coronavirus baa laga test garanayaa kulligayo afkaa noo wada xiran waad aragtay dhibaatooyin badan nimcooyin badan baan haysanay anagoon afka noo xirnayn baan duuli jirnay diyaaradda xilligan doonaan goosan jirnay iska soo qaad test oo warqad cadeyna keenna lama oran jirin marka nimcooyinkii badnaayoon haysanay oo aanan ogeyn ayuu hortana dareensiiyey sanadka 2020 laakiin alxamdulillah waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto dad badan baa dadkoodii ay jeclaayeen geeriyoodeen oo xataa geeridii loo diiday dadkii siday ugu iman lahaayeen
marka dadka inta geeriyootay oo xanuunkan caabuqa uu saameeyey oo qofkii uu jeclaa dadkay jeclaayeen ka geeriyoodeen ilaahay naxariistii janno ha siiyo inta la xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha u soo dejiyo intaan xanuunkan iyo xanuunada kalaba taaban ilaahay nimcoda ay haystaan kuwa ku xamdiya allah naga dhigo waan idin wada salaamayaa waxaan rajaynayaa 2021 inuu noo noqdo sanad aan waxyaabo badan aan qabsano oo nimcooyinkaan haysano ku xamdino oon ilaahay u dhawaano oon walaalahan jeclaano oon nabadda iyo naxariista iyo caafimaadka iyo nimcada aan haysano anu ku xamdino oo ilaahay ugu xamdino kuwa is jeclaada oo dadka ku mashquulin oo ummadda ammaan geliya oo ilaahay barya oo ilaahay u dhawaada oo nimcooyinka haystaan ku xamdinaqa oo qofka walaalkooda hadaysan wax khayr ah tareenin iyaga ay dhibkooda ka haystaan ilaahay ha naga dhigo sanad wanaagsan baan idin rajaynayaa ilaahay ha nooga dhigo dardaarankan idinkula dardaarmayo idinka iyo nafsadeydaba waxa weeyaan we all need inaan barano waxaan u wada baahannahay inaan barano oon ku dadaalno sidaan nafsadeena ugu mashquuli lahayn minding our business waxa la yiraahdo annagoo dhan inaan barano weeyaan qof walba tiisa inuu ku mashquulo ummadda kale inay ammaan naga helaan dadka waa inaan ammaan ay naga helaan waa inaan nafteena ku mashquulno insha Allah qof walba wuxuu naftiisa soo kordhin karo qofka walaalkiisu caawin karo kii uu gacan siin karo kii uu garab siin karo laakiin haddaanan gacan iyo garab siin karin qof waa inaan ogaano businesskeena inaysan ahayn inaan qofkaas iyo howlihiisa ku mashquulno wuxuu qabanayo muxuu samaynayaa muxuu ku jiraa muxuu ku mashquulsan yahay maxaa warkiisa loo waayay maxaasan hawshaas howl noo taala ma ahan so we need to learn inaan ammaan siino marka insha Allah waxaan noo ballama dadka inay ammaan naga helaan maasha Allah ballanteena dardaarankeena waxa weeyaan horumar wax qabad nafsadeena inaan wax u qabano aakhiradeena inaan ka fakarno adduunkeena inaan u shaqaysano ummadda ilaahay inaan ammaan gelino walaalaheen haddaanan caawin karin inaan sharteena ka haysano taas weeyaan dardaaranka sanadka cusub waxaan rajaynayaa inuu ilaahay caafimaad iyo barwaaqo iyo sanad ka wanaagsan kii aan soo dhaafnay uu noogaga dhigo insha Allah waan idin wada salaamayaa ilaahay dartiis baan idin jeclahay salaam baan idin wada salaamayaa hawada idin soo marinayaa sanadkan soo galaya nimcadiisa iyo khayrkiisa Allah na soo aadiyo sanadkan baxayna shartiisi iyo haraantidiisi ilaahay ha naga badbaadiyo intii aan marnay Allah noogaga ekeeyo khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo baan idin rajaynayaa walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogtiin waa walaashin ubax warsame oo idin leh sanad waara sanad guul sanad qiimo leh nabad iyo naxariis leh wadankeena Allah noo badbaadiyo Allah noo dejiyo waa salaamintiin nabad